وحويان حلتان كمان تالكن ديجان كان كسر شيء نصوح حلنا نيجو اسمه ود قفكي وجو أقوات بدنابات هاي قفكي وجو ونكسنابات هاي قفكي وجو قروح بدنابات هاي اسمه لكن وعرف يقرشوا أي نوكرتين وضياشوا وكم عنا قينا حلك إلهي ببحية إلهي بقار للنقضي وعويان مسؤوليتنا وشيء علص وعويان مسؤولية داسي aan soo dooranay ma aha midaan lafaha iyaga iyo qoyskeega iyo caruurtayada aan ku masaarifaysano aan ugu tala galnay maahayna waa mas'uuliyad qaran weey saddex qolo ayay mas'uuliyadaasi loogu adeegayaa dadka koowaad ee mas'uuliyadda loogu adeegayaa waa deegaankan ma halkan jooga ee odayaashiisa iyo duqeydiisa halkan joogaan cidda labaad waxa weeyaan aanu xildhibaanada golaha wakiilada ayaan u tartami doonaayo gobolka wadal baan matali doonaa cidda saddexaad ee matali doonaa waxa weeyaan qaranka Soomaaliland iyo gudaha shacabkaasi meel joogaanba walaalayaal waxaan islaahay goor hore ayaan anigu isku taagay inaan shacabka matalo goor hore ayaan isku taagay inaan doonistiina ku hadlo oo rabitaankiina ku hadlo maanta waxaan doonayaa in kabaha birta ah ee dastuurka iyo sharciga dalku uu siiyay si aan shaqadayda u laabo golaha wakiilada inaad codkaysiisaan baan isku taagay waxaan ku shaqayn doonaa rabitaankiina waxaan ku shaqayn doonaa doonistiina waxaan garab u ahaan doonaa qof kasta oo la gaasiray ama la dulmay ama xaqiisa laga qaatay meeshuu doonaba ha joogay inuu gurigayga soo beegsado inuu telefoonkayga soo beegsado in halka layga helo soo beegsado ayaan idin ballan qaadayaa waajibaadka golaha wakiilada kuma jirto shaqo ma bixiyo mashaariic horumarineedna ma fuliyo waxa la yiraahdaa golaha sharci dejinta iyo siyaasadda la yiraahdaa siyaasadda lagu maamulo dhaqaalaha dalka ayuu dejiyaa wuxuu dejiyaa shuruucda la idinku dhaqayo waxaan idin ballan qaadayaa inaanan damiirkayga iyo naftayda aanan dulmin oo aanan wax shacabku meelu joogaba ka soo horjeeda inaanan haddii ilaahay igu guuleeyo aanan fartayda u taagin aanan codkayga siin baan idin ballan qaadayaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin dhagaysto oo aan idin maqlo maalintay adag tahay waayo qofku maalintay jilicsan tahay ee go'aanku wax la kala dooran karaa uu fudud yahay qofku waa dhagaysan kartaa dadka qaar laakiin maalintay adag tahay ay laba daran mid dooro joogto ayaan idin dhagaysan doonaa idin ixtiraami doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa annagu qoladii halkan hogaaminaysa baan ahayn barnaamijkii halkan in golaha wakiilada la kordhiyo doonaysa waxa weeyaan waxa la yidhi reer bani israa'iil markii ay tii ku dhacay 40 sanadoodii muuse iyo haaruun dadkoogii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo haaruun kamay tegine way dhex socdeen annagu dadkii adduunna jeedhay waan dhex soconaynaa annagaa wakiil ka noqonayna ee ninka dadka jabinaya wakiil ka noqon maayo ummadda annagaa ka wakiil noqonayna kuwii doonayay lahaa waar Soomaaliland la wada leeyahay cid walba dambe u tahay annagana dambe noo tahay qarankana dambe u tahay maal dhawey toole madaxweynuhu wuxuu yiri musharaxiin wanaagsan dadka u soo xushaan saaxiibka madaxweynaha waxa filaya dadkii wanaagsanaa ee uu sheegayay ee ummadda ugu ballan qaadayna ka mid noqdaan rajaynaya ee qaranka danta u ahaa ee qaranka danta u ahaa ee cadaaladda ummadda danta u ahaa ee isla xisaabtanka danta u ahaa ee isku haynta ummadda danta u ahaa kuwii uu sheegay madaxweynaha wanaagsanaa ee ducada qabayna ka mid noqdaan rajaynaya insha Allah ta'ala qoladeena ku jira filaya liiskaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo maxamed abiiba maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii February 2021 inaanu taaganahay musharaxnimada doorashada golaha deegaanka golaha baarlamaanka waxaan dhammaan u dirayaa taageerayaashaydu meel kasta oo joogaan waynu isahayn waxbaynu isku ogayn
horabaan dantiina aan ugu jirnay oo danaha iyaga khaaska ugu sheegnay maanta waxa doonayaa inaad codkaysiisaan baan doonayaa si aan shaqadan awal baydiin hayay aan u libilaabo hadday dalka joogaan fariintaasan hadday dalka joogaan fariintaasaan u dirayaa hadday dibadda joogaanna fariintaasaan u dirayaa degmo kastoo joogaanna fariintaasaan u dirayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa suldaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay idinkuna waad mahadsantihiin